asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kula wacan oo wanaagsan kusoo dhawaada geesi media podcast maantana waxaa idin haynaa barnaamijkeena sheekooyinka saaxiibkey cumar ayaa barnaamijka maanta igala qeyb qaadanaya horaan waxaad ugu barateen cumar sheekooyin aada u xiiso badan midii soodhada bacda lagu shubay midii kale gaaris iyo asiga maaragtay asiga saaxiibkiisa ku dhacday maantana wuxuu noo hayaa mid kale ka qurux badan oo ka xiiso leh ayuu noo hayaa cumar soo dhawow maanta maxaa noo haysaa waa dhowahay dhammaan dadka daawadayaasha waa salaamay meel kasta joogaan sheekadii gaari city soodhada marka laga soo taga sheeko kalaan haynaa sax waxaan ku daraynaa dadka fiirsanaya macnaha dadaa jira oo nala soo wadaagay marka taas waxay ku tusinaysaa in macnaha fariinta dadka tan adiga ay kuma gaartay. dhicin qof baa kula soo wadaagay qof kale ay la soo wadaagay sax marka sheekada waxay ahayd ninbaa macnaha maadaama markuu fiirsaday kadib ayuu nala soo wadaagay asaga marka ma rabin inuu sii sheega marka sheekada marka waxaa waaye intaan gudagelin horta haddii naagtaad guursatay aada qabtay 3 bilood xoogaha xanuunsatay mise macnaha walac uur ay qaaday isbitaal markii geysay hadii lagu dhaha 5 bilood ay maraysaa adii maxaa sameyne sheeko horta sheeko cajaa'ib badan waaye macnaha gabadha aada guursatay marwadaada 3 bilood aad qabtay 3 bilood as qabteen uuraa kusoo baxay uuraa kusoo baxay isbitaal waa cajistay waa cajistaalka isbitaala la geeyey waxaa lagu dhakhtarka wuxuu dhahay xaaskaada waa gabadhan 5 bilood 5 bilood uur waay sax adigana meeqaad qabtaa 3 bilood waa yaab soo ma yaabka adduunka waay nin baa nin saaxiibkiisa u imaaday asagoo meel kale tuulo kale ka imaaday oo macnaha soo martay marka waxaa la jirtay gabar walaashiisa la jirtay oo garooba hal cunug wadata marka labadan nin saaxiib waaye waa isla joog waqti la isla qaatay nin baa weydiiyey marka wuxuu yiri gabadhan kula jirta maxay ahayd wuxuu dhahay no gabadhan walaashay waaye waana garoobe ogow marka ninkan si kaftan aan wuxuu ku dhahay no gabadhan ma isiisid mise ma igu dartid sax si kaftanaya wuxuu dhahay dhimale diyaar waaye adii anaa ku sina dhahay xilliga u baahanta waa la kala tagay mogta waxaa muddo dheer laga soo wareegay marka ninkan sheekada asa kaftan bay ka heeda waa iska hilmaamay sax laakiin ninkii kale asiga muu hilmaamin maan ku gashtay Haa. sax marka maalin uu soo wacay wuxuu dhahay niyow waxaan rabaa aawey horta telefoon iisoo diru dhahay wuxuu u dhahay gabadhan ku sii walaalow sheekadii maxaa uga aamustay ninkan wuu yaabay marka sheekada niyow waxaase waayahay ani gabari waxaas serious bigama aheene ogow sax wuxuu dhahay waxaa yeeli noo imaa u dhahay no cidda markuu noo imaa ee soo fiiri adigu ninkan marka xoogaha asagana waa iska joogay marka dambe wuxuu dhahay ciddan tag soo fiiri sax number 1 gabadha soo ogow xaaladeeda waxay ku sugan tahay haddii dumar waaye kulley oo qof kale hadduu la joogo mise qof haddii ay xiriirayaan soo ogow midda labaadna cidda naftarkeeda iska soo bara maadaama cidda uu yahay cidda saaxiibkiis uu la hadlay wuxuu dhahay no waa ku imaana maalintaas ha ku imaana ogow sax dhimale diyaar waay bes ninkii wuu tagay safar u galay meeshuu aaday marka ciddii uu aaday maalinkaas marka baabuurka u saarnaa waxa ka halaabay marka 2 saacad camal ayuu xooga dib u dhacay sax laakiin ugu dambeys guriga ciddi wuu gaaray sax asaga marka rajadiis mas-uuliyadiis waxay tahay ciddan inuu soo barta gabadhan xaaladeeda soo ogaad iska soo ogaada sax markuu saan u tagay wuxuu u tagay ciddii oo la fadhiy gabadha aabaheed waa nin culimo ah waa nin macalin dugsi ah xaafidul qur'aan ah walaakiin hindhoolo ah waana nin da'wa sax gabadhii ciddooda dhan aabihii walaalahedii. abtiyaalkii adeeradii dadka dhan oo fadhiyaan ehelkeeda fadhiyaan oo diyaarsan ayuu u ninkan tagay ka soo kordhacay sax soo dhowow waa inta fariiso waay aye maxaa qabtaan waay maanta warne wax ma qabnee bal horta fariise waa la fariistee shaahay wax yar baa la siiyey meeshii lena xafladaba ka jirta aye duqyaa u yeeray wuxuu dhahay walaalow soo dhowow wuxuu dhahay no markii aan duqyaan arkay ku gacanta igu soo taagay salaamay wuxuu dhahay gabadhay waa ku sii saacdan wixii laga bilaabo gabadh waa ku sii ninkan wuxuu u socday gabadha inuu soo ninkan barto. cidda soo fiiray ahayd sax ninka wuxuu dhahay ani dhan barafaan noqday gabadhii soo fiiray u dhahayo waa sii gurigii markuu tagay Haa. waxaa la gabadha waa ku siiyaan gabadh waa lagu sii loo fududiyey markaas wuxuu dhahay niyow ani inaa cidda barta wuxuu dhahay markii gabadh walaalkeed
ay marka horena saaxiibo ahaayeen kadib gees uu la istaagay wuxuu dhahay war allow saan iskuma ogeene maxaa setupkan muxuu ahaa sax wuxuu dhahay no adi haddaa dhehaysid laguma aqaan ciddiina waa la aqaanaa adina waa lagu garanaya gabadh duq waa ku siiyey he wixii hadda ka bilowda aday ku joogtaa waay sax ninkii marka soo yaaban wuu soo laabtay sax xaafadooda kusoo laabtay cid waa imaaday intee waxaa laga bilaaba marka waalidkii ma oga asaga naftirkiisa diyaar ma ahayn laakiin hadda waa la sii gabadha abeena nin dhoola waa nin da-waay oo culum ah haddana sax intee waxaa laga bilaabaa wiilka wuxuu dhahay marka saam wax yeel markaan ka siwaay hooyadeen u tagay wuxuu ku dhahay marka ciddan oo gabadhan la siinaa ninkan waa ka sayn ayagan kor ahaan waa laga garnaa wuxuu dhahay hooyo waxaan ku weydiinaa faamilkaas gabadh noocaasa joogta ee lacalla haddii aan aniga aan doonan lahaa mise haddii la isiin lahaa ka waran bal markay tiri maya gabadhaas garoob waaye wax weyn hadda saas lagu dooranaana ma lehe waxay tiri iska dhaaf dhib ma lehe asaga marka toos inuugu sheegan ma rabo sheekadana korkor ha inuu u sheegan waa raba waana cabsanhaya sax wuxuu dhahay hooy dhib ma lehe bal ilaah xaggiisa hadday ka imaada iska waran bal maxay tiri maya tiri kolley option kalaa ka badane gabdho kalaa ka badane ogow markaas adii wuxuu dhahay hooy dhib ma lehe haddayba dhacda ogow waxay tiri haddayba dhacda wuxuu dhahay dhib male ogow waay adi maamada ninka dambe markii dambe wuxuu suubinahe inuu u sheegay noqotay sax markaasa marka waxaa la yidhi maxaa waaye wuxuu dhahay niow odaygaas oo waayeelka ah oo lama falaankan igu sii ayaan ka bixi waaye inuu kheyr ku jiraa laga yaabaaye hooyo wuxuu yidhi marka arrintan saanay u dhacaysa ogow sax saas miya iyadoo ka cagjiigisa waxay tiri dhimale ogow ninkii waa tagay maalmuhu wuxuu joogay waa lasoo wacay waxaa la yidhi marka diyaar waay kaalay guurso gabadha oroosa geedhi u imaaday waa oroostay waa la imaaday marka ciddoodii uu la imaaday waa la joogay waqtiaa laga soo horeeyey gabadhi uuraa yeelatay uur markaa yeelatay xoogaa markaa joogtay 3 bilood markaa marays maxogga marka gabadha xoogaa oo xanuun zaa'id ay ka dareemaysaa marka ma dhaqaaqi karta wax ma suubin karta ay leedahay wuxuu dhahay isbitaal aan geey gabadhan waa la wada isbitaala la geey gabadhi sax asaga hooyadiis waa israacin gabadha isbitaal la geey waa la baaray natiijadii soo baxday waxaa la yidhi gabadhan 5 bilood uuray qabtaa yaa markaas 3 biloodna uu qabaa 3 bis uu qabaa maamadu waxay tiri adi ma waalneeda la yidhi naag oo ilmo wada markii lagu keenay adi ma jaahila tahay si aad ku ogolaad hadda saacaddan laga bilaabo gabadha ciddooda ku celi sax gabadheedu waxaa soo ka haysaba malaha male xanuun ahay ninkii subax maxbuud tale ee marka maxaa la subina adi hadda maxaa subin lahayd haday kuu dhacdo sheekadaas waa adag tahay duq wuxuu ninkan wuxuu xasuusana haddana odaygii xaaladiis qof hindhoole ah oo qof bilaadan ah sharaftaas kugu sii culamana ah culamana ah sideeli marka 7 maalin aan u dhahay aan ducaysana ilaah leen baryo ilaahu af meelaan wax ka bilaawlay ii jeed macnaha saan wax yeela ma lehe ilaahu arrintan afkeedi meel iga bix maamada maalin walba ay soo wacay waraa gabadha ma dirti ma hooy weli ma dir adee ma dirtid naagtan ilmaha adi dhalina wadat maxaad u haysaa wa ma hooy dhimale waa dira wuxuu dhahay 7 maalin markaan ducaysanahay stress waxay ugu soo dhacday u dhahay inaan isbitaal ku celiyo baaritaan labaad inaan ku celiyo ay soo baxday bes waa waday wuxuu dhahay hooyadaa dhahay marka hooy gabadhan waa dir rabaay bal hal maraan baara kaali bal israacan isbitaalka la iligii sax maamada marka gabadhan maba arki kartaba sax waa ka soo boodi arrintii natiijada dhakhtarkiiba waxaa waaye haa maamadu waxay leedahay araaba iyadoo dhib ku qabtay maamadu waxay leedahay adiga gabadhan maxaad ugu haysaa meesha asagna wuxuu leeyahay ninka waa abaheed waayeelka war hindhoolka hadduu waayeel hadduu yahay mise hindhoole hadduu yahay ilaah ka dhigee ma anagaa ka dhigin si gabadhan wad wuxuu dhahay hooy waa wadaay safartan la isbitaal la geeyey ani hooyada asraacni u dhahay gabadha ma dhaqan karto maxogan dhan waxa waaye aad waa xanuun zaid maamad iyadoo gabadha geesgees u hays ma rabtee mogta qof aan la rabin oo loo qasbay mogta sax iyadoo geesgees u hays isbitaalka la geeyey isbitaalka marka la geeyey waa la baaray natiijadii soo baxday waxaa la yidhi gabadhan uurkeed horta waa 3 bilood midda labaadna mataanay wadaa
yah culayska marka culeyska mataana hadhow ay wadaa la yidhi. dhakhaatiirta wax ma hubsanayaan. marka maamadii haa saasi dheedi harasa dhaqaramagta markii ay maxaa la yidhi ay Macnaha guul weyn ay gaartay. markay Macnaha si fiican u salaantay oo ay si fiican u qaado way bilowday waxay tiri saasi dheedi hadalkaan aqaani anima waxaan la sheegaa waxaa isaga wax u jiraan marka alaa kulli xaal gabadh waxaa la yidhi marka waxa waaye macnaha caloosha kolley waxay ku qiyaasayeen markaas inay aada u weyneed ilaan wixii mataano ay mogtahay qof hal cunug wadi qof mataano wadana isku size maahan sax kolley marka hore waxaa laga yaabaa in qalab yar ay ku cabireen laakiin marka dambe waxaa la saaray computer la saaray sax gabadhi marka waxaa la ogaaday inay 3 bilood ay tahay ay uur tahay laakiin ay yihiin mataano mataana sax ninkii marka ilaaha horta maslaxa keeni meesha ku keenay sax bas haddii saas noqoto maxaa la subinahe gabadha ciddaada iska joogtay waa u dhashay mataanihii waa u joogaan waa weyn yihiin ciddooda iska dhaqanayn ilaa hadda maasha Allah sheekadaas ka waran bay casharka marka wuxuu dhahay hal shay aan ka barti kuyi halka shay wuxuu dhahay sabar macnaha haddii aan sabri lahayn markii la dhihi lahaa markii la dhahay gabadhaan ciddooda geey gee uu ku fududaan lahaa ku fudaan lahaa sax maxaa ka dhici lahaa sabarka aad buu fiican iyo waa inaad ka fiirsataa Inaad- ficil haa. walba samaynaysa ficil walba waa inaad ka fiirsataa ilaahan inaa ku xirnaataa ilaahay ku macnaha xirnaataa duco- tadoo bir mar ninka walba. ilaahay baryaay haa ilaahay ku soo dejiyey mar in walba gabadhaan- ducaysanaysid sax ilaah waxaa waaye ducada hadduu ka aqbala wixii rabti waad heli maasha marka Allah sheekadaasa jirta cajiib aad oo baad u aad mahadsan loola tahay yaabay aad baad u mahadsan tahay cumar kolley dadka daawadayaasheena way ka cimri qaateen wayna maaragtay waxay u tahay maxay u tahay waxa oo wax ku baran cashar lagu barnayo cashar haa sabarka inuu muhiim yahay Mhm. labada qof oo isjecel ama isguursatayna ay tahay in ay maaragtay isku sabraan oo Haa. isfahmaan sidaas maaragtay nolosha lagu wado cumar aad baad u mahadsan tahay asxaabteena haddii sheekooyin kale aad haystaan sidan cajiib u tahay waa haa noo soo qori Waa la kartaa soo kadibna wadaaga. aan cumar oo noo sheekeeye fiican ah ayaa noo sheekeyn doona insha allah cumar waxuu hayaa sheeko kale oo ka cajiibsan oo ka qosol badan middan waa sheeko cajiib ah oo Qiso waay. qiso waay tan qiso qiso waay tan, haa, qiso waay laakiin sheeko kale oo asaga ku dhacday markaa la sheegi doonaa taas markaan sheegi doona insha allah Insha Allah. anigoo maxamed eki ibrahim anigiyo saaxiibkii cumar waxaa idinkaga tagaynaa sidaasi nabadgelyo iyo mar Assalaamu kale iyo calaykum. muuqaal kale insha allah asalaamu calaykum waraxmatullaahi waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu wabarakaatu